iyadoo 34 saacadood aynu ka soo gudubnay roobab lagu diirsaday ay ka da'een deegaano badan oo ka mid ah gobolada bariga Somaliland isla markaana ka mid ahaa deegaanada ay sida ba'an u saameysay abaartu ayaa haddana waxaa jira deegaano ka mid ah gobolka Sanaag oo ay abaartu ku reebtay dhibaatooyin ay ka mid yihiin cunno yari iyo cudurrada faafa oo ka dilaacay deegaanadaasi waxaana dawooyin iyo raashin gaarsiisay tuulada Ceel Nimcoon ee degmada Ceelaf Weyn ee galbeedka gobolka Sanaag Dr. Ayaan Jirde Ciise oo ka mid ah dhakhaatiirta Soomaalida ee ka howlgala magaalada London ee dalka Britain waxaanay baaritaan caafimaad u sameysay dhallaanka iyo haweenka deegaankaasi waxaana raashinka noocyadiisa kala duwan loo qaybiyay 100 qoys oo ka mid ah dadka abaartu cayraysay ee ku soo barakacay deegaanka Ceel Nimcoon Dr. Ayaan Jirde Ciise iyo Suldaan Siciid Yuusuf Ducaale oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ka waramay kaalmada dawooyinka iyo raashinka ee la gaarsiiyay dadka tabaalaysan sidoo kale dadka loo qaybiyay deeqda raashinka ayaa ka mahad celiyay gargaarkaasi magacay waa Aamina Ayaan Jirde Ciise waxaan ahay dhakhtarad oo ka timaaday Ingiriiska London sababta kale inuu yimaado waxay ahayd dadkeena masaakiinta ay ku dhibaataysan abaaraha inaan wax yar ka caawiyo anigoo Ingiriiska joogo oo iska fadhiyo TV-ga ka arkaya dadkeena sida u dhibaataysan yihiin ayaan ka fikiray talo lacag yar man u ururiyo dadka raashin ugu soo iibino waxaan u ururinay dadka $8,000 saddex week gudihiisa oo intaas oo dhan awood waxa keentay dadka Ingiriiska jooga oo donation far badan soo siiyay iyo waliba qaar Sacuudiga jooga marka waxaan doonayaa inaan warka gaarsiiyo dadkeena dibadaha jooga dadkeena aad ay wadanka ugu dhibaataysan yihiin meeshan maanta nimaadnay waxa la yiri muddo dhowr bilood ayaan raashin loo keenay dadkan dawladana warka ma hayso dawladda waxba ka sugana dawladda way xaq mas'uuliyadooda waa eber ay ka yihiin maanta waxaanu joognaa tuulada Ceel Nimcoon ama Ceel Midgaan qof waliba sida uu yaqaano oo aan ku qaybinayno raashin mucaawimo ah oo ay u jeedaan dadka jooga maanta itaalkooda yaaragooda marka hore Ilaahay baa mahad leh marka xiga waxaan u mahadnaqaynaa hablaha raashinka sida oo ay koow ka tahay Dr. Ayaan Jirde Ciise waa inaan dhakhtarada oo reer Somaliland ah oo Ingiriiska degan iyo hablaha kale ee la socdaba sida Foosiya Ali Mahdi waxaan leeyahay aad baan idinku mahadnaqaynaa iyadoo aan waligeed dhulkan arag oo imanin inay maanta raashin soo qaado oo Hargeysa ka soo kicitinto oo jiida dheer soo marto oo dadkeeda soo gaarsiiso oo ay u timaado annaguna waxaanu leenahay Ilaahay miisaanka xasanaadka ha ku saaro adiga iyo dadka kale aad wax ka soo qaadayba amiin alxamdulillah Ilaahay mahadle waxa kale mahadle Suldaan Siciid Ayaan Jirde Ciise ee dadkeeda ah hadalaya jilaasana waqtigu uu helay wax soo gaarsiinay madaxweyne gurigeenu goob adiga ku qoran gaar bay ka noqotay giraan looma keenay waxay galabsadeen in lagu gooyay ishee gaandhari wareegiyo gudidii abaaraha xajiyaal gurmadaya gaadiid la soo raray kasiin iyo bayabasada geestu ka dhaafay waxay galabsadeen in lagu gooyay ishee kharashaadka ku baxay gargaarkaasi ayaa laga soo ururiyay bulshada muslimiinta ee ku nool dalka Ingiriiska Ali Daahir Maxamed Boos TV-ga Universal Bro